dabaabada duusha Mareykanka waxa uu diiday dowladaha caalamka inay helaan xitaa saaxiibkeeda ugu dhow ee Israa'iil waxay hawada ku duushaa iyadoo aanay jirin cid bartilmaameedsan karta hal xabo oo iyada ah ayaa awood buuxda u leh in ay burburiso ciidamo dal oo dhammaystiran sida ciidamada Bahrain, Kuwait ama Qatar ma jeclaysan doontid inaad ku aragto iyadoo oo dul habaysa hawada dalkaaga F-22 Raptor xilli ay cirka u xoreysneed diyaaradda wax burburisa ee uu Mareykanku leeyahay ruushku waxa ay bixiyeen jawaab culus waxa ayna soo saareen suuqooyi 57 markaa kadib hawadu waxa ay u muuqatay mid la wadaago balse bilowgii qarnigii 20aad waxaa soo baxday diyaaradda wax burburisa ee F-22 Raptor waana midii ugu horeysay ee diyaaradaha jiilka shanaad kuwa dagaalka waxaa sameysay oo horumarisay shirkadda Lockheed Martin oo laga leeyahay Mareykanka waxa ayna qaas uga dhigtay ciidamada Mareykanka laga soo bilaabo xilligaas Koongareeska Mareykanka ayaa soo saaray sharci dhigaya in ay tahay mamnuuc iibinta diyaaraddaas kuna amartay shirkadda sameysay iyo ciidamada Mareykanka in xitaa laga iibin karin dalalka ay xulafada dhow yihiin sida Israa'iil balse Israa'iil marnaba ma joojin riyadeeda ah helidda diyaaraddan si ay u noqoto awoodda ugu weyn ee bariga dhexe uguna gacan sareyso dalal badan oo ay ka mid yihiin Turkiga iyo Sacuudiga iyo Iiraan iyo Masar dhanka kale Mareykanka ayaa ku adkaystay go'aankiisa laakiin Israa'iil ayaa heli karta diyaaraddan adeegeeda haddii ay gasho dagaal ballaaran oo la isku marto sida uu dhigayo sharci Israa'iil ka dhigaya xaalad gaar ah si looga dhabeeyo ballanqaadkaas Mareykanka ayaa u diray dhowr xabo oo F-22 ah saldhigga uu ku leeyahay dalka Qatar una noqoto barta ugu dhow ee Israa'iil gurmad degdeg ah loogu diri karo khibrada gorfeeya arrimaha militariga ayaa u sababeeyay in Mareykanku diido iibinta diyaaraddan tahay cabsi uu ka qabo dalalka Ruushka iyo China isagoona aaminsan haddii uu diyaaraddan iibiyo ay ka dhigan tahay in ay dalalkaas si fudud ku heli karaan tiknoolajiyadda ay xambaarsan tahay diyaaraddaas su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxaa ka dhigay diyaaraddan hadafka dowlad walba Mareykankana ku khasbay in uu dunida kale u diido F-22 Raptor ayaa awood dheeri ah u leh ka gambashada raadeerada taa oo awood buuxda u siinaysa in ay bartilmaameedyadeeda dhulka badda iyo cirkaba si fudud u burburiso tilmaamaha kale ay diyaaraddan leedahay waxaa ka mid ah in ay leedahay hal duuliye sidoo kalena ay leedahay 4 garbood 2 kore iyo 2 dambe kuwaas oo ka yeelaya inay u duusho qaab fudud una duusho goobo fogfog dhirirkeedu waxa uu dhan yahay 19 mitir joogeeduna waxa uu gaarayaa in ku dhow 5 mitir waxa ay duuli kartaa 2500 oo kiiloomitir halkii saac diyaaraddani waxa ay xambaari kartaa 6 gantaal oo ah nooca loo yaqaan AIM 120 iyo AMI 9 kuwaas oo awood u leh in ay bartilmaameedkooda ka burburiyaan iyagoo u jira 48 kiiloomitir sugeyn dhammaan gantaalada ku xiran diyaaraddan ayaa qiimahooda lagu qiyaasaa $1 milyan halka hashii diyaarad oo noocan ahna qiimaheedu dhan yahay 500 oo milyan ama nus bilyan taas oo ka dhigaysa diyaaradda ugu qaalisan dunida Koongareeska Mareykanka ayaa amray 2009 in la joojiyo sameynta diyaarado cusub oo F-22 ah laguna ekaado 157 xabo oo hadda haysto sameynta F-22 Raptor waxa ay soo bilaabatay 1997 waxa ayna shaqada si toos ah ugu soo biirtay 2005 daawade ma aaminsan tahay diyaaraddani inay leedahay awoodda uu Mareykanku sheegay fadlan daawade fikirkaaga waxaad inoogu dhaafi kartaa qaybta hoose ee comments-ka mahadsanidin